fartuun aadan waa haweeney u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha oo fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waxaana haatan ay ku guulaysatay abaalmarin caalamiya oo ay bixiso xarunta loo yaqaan Aurora Prize ee dalka Armenia waana xarun caalamiya oo bixisa abaalmarintani oo lagu sharfo dadkii lagu xasuuqi ka dhacay Armenia 1915 ilaa 1923 fartuun aadan iyo inanteeda Ilwaad Elman ayaa waxay ka howlgalaan xaruntooda Elman Peace Center ee ku taala magaalada Muqdisho muuqaal kooban oo madasha lagu soo bandhigay ayaa fartuun aadan waxay ku sheegtay in saygeeda oo la oran jiray Axmed Elman uu aasaasay xarunta lagu tababaro dhalinyarada xirfado kala duwan lagu baro balse waxay sheegtay in saygeeda ay dileen hogaamiye kooxeedadii Soomaaliya ka jiray 1996 sababo la xiriira aragtidiisa oo ahayd in dhalinyaradu qoriga ay dhigaan oo ay qalinka qaataan balse hogaamiye kooxeedyadu aanay jeclaysanin hawsha uu wado isla markaasina ay dileen Axmed Elman waxaana ay sheegtay markii la dilay ninkeeda ay iyada iyo caruurteeduba u qaxeen wadanka Canada balse sanadkii 2013 ay dib ugu soo noqotay Muqdisho oo ay dib u aasaastay xaruntii saygeeda ee Elman Peace Center iyadoo mid kamid ah gabdhaheedu ay la shaqaynayso fartuun iyo inanteeda ayaa intii hawshaasi ay wadeen waxay caawiyeen in ka badan 11,000 qof oo la kulmay fadqalalooyin ama xadgudubyo dhanka jinsiga kuwaas oo xaruntooda ay caawisay sidoo kale 3,500 oo dhalinyaro oo hore loo askareeyay ayay dib uga soo celiyeen goobaha colaadaha waxaana ay bareen xirfado aqooneed oo ay ku shaqaystaan taasi ayaana keentay in dadaalkooda uu soo jiito hay'adani dhiirigelisa bani'aadanimada gaar ahaan xaruntan loo yaqaan Aurora Prize oo dhiirigelisa badbaadinta bani'aadamka waxaana la guddoonsiiyay abaalmarin sheegaysa in hawshaasi bani'aadanimada ee ay ka wadaan magaalada Muqdisho ay badbaadisay dhalinyaro badan fartuun aadan ayaa waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay in caalamku aqoonsaday hawshii Muqdisho ay ka wadeen. Thank you very much. Спасибо большое всем присутствующим. I'm humble, I'm grateful to be here and to recognize the work we do in Somalia. We are so happy to recognize the work we do in Somalia. abaalmarintaasi lamid ah ayaa sidoo kale waxaa helay nin lagu magacaabo Dr. Tom oo u dhashay wadanka Mareykanka balse 10kii sano ee la soo dhaafay ku sugnaa wadanka Suudaan gaar ahaan magaalada Nuuba waxaana ninkaasi dhakhtarka ah uu daweeyay 750,000 oo bukaana Dr. Tom ayaa waxa uu ku beegmay xilligii colaaduhu ka soconayeen qaybo kamid ah Suudaan mararka qaarkoodna waxaaba lagu tilmaamay inuu ahaa dhakhtarka kaliya ah ee ku sugnaa magaalada Nuuba oo 100,000 qof ay degan yihiin waxaana uu ka howlgali jiray xarumaha kala duwan ee caafimaadka halkii maalinba waxa la sheegay xilligaasi inuu arki jiray in ka badan 500 oo qof waxaana uu sameeyay in ka badan 1,200 oo qalliin sanadkiiba marka la isu wada geeyana waxa uu sameeyay 10kaasi sano in ka badan 12,000 oo qalliin ugu dambeyntiina dadaalkiisa ayaa loo aqoonsaday si caalami ah. I've been here for the past week. В этих горах и каждый день без выходных лет. Впервые за все это время Том Катена выехал из Судана. Сейчас там находится 3 армянских врачей.